maantay waxaan u bixinay maalintii وتعاونوا على البر والتقوى وماسكة دكتورك تشدوا بوسطن مقالتي أقوانتا مقالتي البحنمدة مقالتي حرية مقالتي هلدن كمريكا مقالة بوسطن أيام تشدوا ويننا هي الشعب الصوالي مقالة بوسطن اسبيتالك aan caawa ka shanqarinayno oo u wada fadhino ka qayb qaadashadiisa waxa isweydiin leh mashruucu marka la dhisayo mashruucu inuu lahaada haqabtir baahi bulsho hadduusan jirin haqabtir baahi bulsho mashruucaas mashruuc hirgalaya ma waxaan ka wadaa inteenaan iyo intoo kale haddaan isku tagno oo magaalada gaalkacyo saddexdii guriba u dhisno ATM machine lacagta ay kala soo baxaan magaalada gaalkacyo lacagta ay kala soo baxaan mashruucaas muxuu noqonayaa nin qaawan oo koofiyad qurux badan loogu diray markee mashruucu haqabtir baahi bulsho mara mashruuca hadda caawa ka hadlaynaan wuxuu leeyahay haqabtir baahi bulsho bulshada ayaa u hanqabta bulshada baahideeda ayuu daboolaya جزاكم الله خيرا ريتوس runtii aad iyo aad ayuu noo baraarujiyay maanta halkan kuma kala tagayno maqrib waa soo dhow yahay caawa halkan seexanaynaa hadduu alla idmo qof walba barkintiisii waa wataa waan malaynayaa Somalia 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 hada Somalia Bursho inshallah waxaan ku soo dhaweynayaa ninaad aad u taqaanaan Axmed Carab oo maanta loo isugu yimid sidii ummadda Soomaaliyeed waxa loogu qaban lahaa marar badan baynu isu nimid waxyaalo badan baynu ka shaqay laakiin waxa halka maanta haddii aynu halkan ugu shirsannahay war maxaynu ummaddeenu u qabanay war maxaa aynu ummaddeenu u qabanaa caafimaadkeedii waxbarashadeedii magacaygu cabdulqaadir faarax sida horta way kuufiinameeyey laakiin dhalinyarada uma ka mid ahay waxaan ku hadlayaa afka dhalinyarada Boston wiilal iyo gabdhaba waxaan leenahay dhalinyaradii Boston waxay leeyihiin thank you so much waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo doorkii gabdhaha gabar Soomaaliyeed waa Victoria Siraaj Yusuf السلام عليكم لمانتي أنا مثلا هي دمار وين الصوماليين كان أهان كنت أهل بوسطن حلينا هاي دمار تقول ما تكعلها كل سنين دكتور عبد القادر نكتب سلام يكون سوق الدنيا وين أنا بدون gabdhaha Soomaaliyeed waxa lagu yaqaan inay isku duuban yihiin waxaysan bilaabinna Boston kuma bilowdaan waxaysan dhameystirna kama dhameystirmaan Allahu Akbar Allahu Akbar ragadaana waa noola dhaartay soo jeedin Victoria Siraad waxay tiri waxaynan bilaabin ma bilaabmaan waxayna dhameynina ma dhameysmaayaan marka cid loola jeedo waa ragga marka waa inaan meesha ka kacnaa aan dumarka la tartanaa khayrka aan kula tartanaa jazaakum allah khayr insha Allah hadana aan ku soo dhaweynayaa Maxamed Aadan Dagaweyne oo runtii aad iyo aad u yaqaano doctorka noogana sheekayn doono taariikhdiisa iyo aqoontiisa iyo nafuradiisa maxaa yeelay doctorka asagoo clinic leh ka shaqeeya Italia wuxuu dadkiisa dartiis inuu caawiyo u soo guuray oo u yimid Soomaaliya oo u seexdaa biyaha qaraar cabaan marka waxa soo information insha Allah waxana siin doono adeerkay Maxamed Dagaweyne waa salaamintii
waxaa meesha mar walba ka maqnaa anigu aan tabahay waxa weeye horta hore madal aad iyo aad u qurxoon dadkuna aan xaqiiqatan ka muuqato wanaag iyo farxad السلام عليكم يا جماعة بردولش هواكو وينقفي عين أروح أنا من سنة هاي سومالي إلي شيلي لهاي هالك إياه وده هدينا هواكو شيلي لهاي beside problem كان مثلا biological كأون طبيعي oo ilaahay sidoo uu abuuray haweenka iyo inay yihiin salkii abuurka bulshada Soomaalidu maamaya badan bay leedahay tusaale badan baa jira oo haweenka yani lagu tilmaamayo inay yihiin kuwa la'aantood ay waxba socon karaan waxa la yiraahdaa nin mataqaana wanaagsan naag wanaagsan baa ka dambaysa oo nin kacaaw yani successful dhinac kastoo aynu ka fiirino ogaada yani marka dhibaatooyinka aan laga sheekayn karo oo factiska historicalka oo haweenku ay nooga tabar weeyihiin ama nooga danimo fiican yihiin wax la dhamayn karo oo maanta cawada halkaynu ku dhamayn karno maahan marka mahad badan baynu celinaynaa intaanan fadhiisana waxaan leeyahay hal kaliya aynu yaallo kulligeenuna haweenkayna aynu istaagno please الله أكبر الله أكبر تكبير 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 كبب حياة الشيخ توكل فليتفضل ما وعدين أيوه حياة الأداء وعديه رأي قبرتين ولا وعد يجيس وحسيبه وضمبيسه لكن waxa wanaagsan mar walba inay kugu baxdo dariiq ilaahay agtiisana lagaaga qorayo bulshada agteedana magacaad kaga yeelanaysay ummadana wax u taraysa saddexda faa'iido isku darsanaysa waa mar horta khasaaro ma sadaqada lala baxo iyo ducada dadka muslimiinta qof wax ku waayay ma jiro intaanu aragnay hadda gobolada Mareykanka aanu marnay qof intuu sadaqa la baxay sadaqadii waa ku khasaariyay wali ma arag إن شاء الله تعالى أنت مسلمين تقفي آمين ودهان وكن دولار نو بالله بيو وإلهي سبحانه وتعالى بلوكيتك يا قجحة يا هويضة يا عرورتا يا ذكر الدواوين يو وأنا أجد يا نقالة هذا وحكسو جريان وأن أنت آمين كني رهنا ونو بالله إن شاء الله تعالى ولي برجع حقا لقى شيء جنيه قبل أنت بدور قضاء وقبضنا يا نو بالله إن شاء الله تعالى وهلقب إن ودعينه ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلهي سبحانه وتعالى وحول الله بحي الله كأقدره وحول الله بحي وحكونا ما خاركو دوتي أي لقد وقت كان إسلام مركز لقيادة الله فقيسو حل وهرم يسدي وحلوان كمان كان الله حقيقة قلوبتها إصلاح من دليرة هل كان فنيو وبروفيسور محمد جامع حسود جديد in la sameeyo guddi network ah oo sii wada hawshan caafimaadka Soomaaliya kaliya ma aha jaamacada medical center muqdisho caafimaadka laga kaalmeeyo u baahan tahay hiiraan caafimaadka laga kaalmeeyo u baahan tahay galgaduud caafimaadka laga kaalmeeyo u baahan tahay baydhabo bakool jubbooyinka kismaayo Soomaaliya oo dhan meel wada joogto waxaan ka tagay xaqiiqatan waa Soomaaliya isku hal Somali baa iskale Soomaaliya bulsho waxaa haray one more baa inoo haray waxaan ku soo dhaweynayaa Dr. Abdulqaadir Maxamuud Jaamac oo guddoonsiinaya insha Allah maanta shahaado sharaf gaar ahaan dumarka Soomaaliyeed ee reer Boston waxaan halkan ku soo dhaweynayaa dumarka ay doorteen gabadhaasna gabadha waxa weeyaan Doctoressa Siraad Yusuf Doctoressa Siraad Yusuf shahaado ay qaadayso waxay u qaadaysaa reer Boston oo dhan gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ee reer Boston
waxaa lagu yaqaanaa walaaltinimo waxaa lagu yaqaanaa tolnimo waxaa lagu yaqaanaa ehelnimo waxaa lagu yaqaanaa inay hal jasad yihiin innaga qabiil shaqo kuma lihin maalintii noolaga baahdo magaalo walba oo soomaaliya ku taalo in la caawiyo sidaan oo kale isugu imanayna soo badan ma ahan waxay saahilaan waxdina ka weyn haweenkeenu aynu xusbayno aanu jeclaano wax ka wanaagsan haweenka reer Boston waa kaa guddoomay waana mahadsan tahay ayagaana iska